ciidamada waddan badan ee dalka Pakistan ayaa qaaday weerar baaxad weyn kaasoo loo arkay inuu yahay kii ugu weynaa ee ay jawaab celisa tan iyo bishii May kadib markii ay Pakistan iyo Hindiya u dhammaaday iska horimaadkoodii ay qaadaan. Wararka ugu dambeeya ayaa sheegaya in weeraradii ugu dambeeyay ciidanka militariga dalka Pakistan ay qaadeen ahaayeen kuwo isku xiran oo jawaab degdeg ah kadib markii uu dhacay weerarka ka horreeyay. kusoo dhawaada barnaamijkeena warwareyn oo sidoo kale aad ku ogaan doontaan faallo ku saabsan wixii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho hawadeeda ee lagu celiyay qaar ka mid ah diyaarado siday ciidamo oo iyadana ineegi doono. Waa labadii bishii 2026 dabashana qiimaha badan waa mar kale iyo barnaamijkeena warwareyn. Khilaafyo aad u xooggan ayaa ka sii socda gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya iyadoo baarlamaanka maantana uu ka dhacay buuq aad baaxad weyn kadib markii dad badani oo xildhibaanada ka mid ah ay diideen habsami u socodka baarlamaanka iyo waliba waxay ugu yeedheen ka hortagga sharci darro iyo leexsi dadban oo la sameynayo xilli uu gabaabsi yahay maalmaha hore baarlamaanka. wararka ayaa sheegaya inay dhaceen markaasi buuq aad u xooggan gacan qaad loo geystay qaar ka mid ah xildhibaanada iyadoo qaarkoodna loo lageeyay cisbitaalka. xarunta baarlamaanka ayaa isku bedeshay meel ciidan oo kale kadib markii ciidamada booliiska lagu soo daabulay saaka goorsii horeysay. xildhibaanada baarlamaanka oo la damcay in qaarkoodna loo diido golaha inay galaan ayaa kuwo kalena iyaguna waxa ay diideen in kalfadhiga baarlamaanka uu furmo maadaama ay sheegeen inuu sharci darre yahay inuu aadan madoobe uu sii wada weli. waxay ugu yeedheen damiciisa ku aadan bedelaada dastuurka iyo qodobo kale oo xilligan aan loo joogin. tan ayaa imaanaysa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya maalmaha kooban ay u hareen maadaama marmar ka dambaysa ay sii socoto iyo madaxweynaha oo gabaabsi ay iyadoo heshiis doorasho oo loo dhanyahay dalka aan lahayn taasoo mar kale keentay habsami u socodka dowladnimada Soomaaliya iyo xasiloonidii awalba tiicaysay in la isweydiiyo halkay ku dambeyn karto. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqday inuusan ilaa hadeerta uusan dhigaynin Google uu raali ka yahay sababtoo ah dad badan ayaa u arka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in uu dalka la meereysanayo. dhinaca kalena dhacdadii shalay ka dhacday hawada magaalada Muqdisho ee lagu soo celiyay diyaaradaha ayaa dadku waxay kala qaateen fahano kala duwan. wararka ka soo baxaya arrintaasi ayaa waxaan ku sameynay baaritaan iyo isbarbardhig dadku iyadoo aysan isku aragti isku aqoon iyo siyaasad dareen iyo dadnimo midna aysan ahayn haddana waxaa soo baxday in jawaabaha laga bixiyay arrintaasi ay keeneen tuhumo waaweyn iyo sidoo kale caadifado la yaab leh. Puntland iyo Jubaland waxay si isku mid ah u sheegeen inuu ahaa isku day dil halisgelin nafaha ciidamada iyo mas'uuliyiin horudhac u ahaa shirkii ay ka qaybgeli lahaayeen qaybta ka ahayeen mucaaradka iyo dowladda federaalka lafteeda kaasoo dhex mari lahaa sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday laakiinse arrintu aysan way kayn ila filinayay. hadaladooda waxaa ka buuxay xanaf xooggan oo xaaladda ka sii dari kara waxaana si gaar ah uga sii muuqday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni umal gaar ah isagoo ay kasoo burqanayeen hadallo kulkulul wuxuuna ku anjabay in laga xisaabtami doono sifada ficilkaas oo uu ku qeexay faldambiyeed iyo isku daydil. taasina waxa ay kor u sii qaaday aragtiyada kala duwan iyo weliba wadajirka ummadda oo dhaawac aad u xooggan uu gaadhay dowladda federaalka. jawaab iyo fahamka dowladda lagu sii daray dadka taageersan waxay iyaguna u arkeen arrintaasi hadalladoodana ka muuqday duulaan iyo khalkhalgelin amniga Muqdisho. waraaq la soo saaray oo wasiirka gaashaandhiggu faafiyay balse wasaaradda amnigu magac ahaan lagu saxeexay waxaa ka muuqday in loo arkayay ciidamada ilaalada u ahaa madaxda maamuladaasi oo kuwa dheeraad ku noqon kara Muqdisho iyo amnigeeda waxaana lagu laaday inay tahay arrin xaalad abuur iyo khatargelin amniga caasimadda ah oo kasoo jeejiyay magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe. marka arrimahaas laga hadlayana waxaa ka muuqatay in dowladda lafteedu qaabka ay u dhigaysay warka iyo qoraalka ay ka dhigaysay oo kale sheekada sidii mid uguba oo aan horey u dhici jirin. laakiin sooyaalka taariikhda ayaana baraya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qayb ka ahaa mucaarad hubaysan isaga oo 2021 iyo 2022 2021 iyo 2022 horboodayay in ciidamo trapeela iyo maleeshiyaad xataa la keeno gudaha magaalada Muqdisho aagaga marinaayana oo ka xidhay difaaciye la yaab leh kadib markii sidoo kalena uu ciidankii jiidaha ka soo saaray. sidoo kalena Axmed Madoobe iyo Denigan ayaa iyaguna ciidamo ku soo daabulayay magaalada Muqdisho kuwaas oo ay ku tilmaamayeen inay yihiin ilaaladooda gaarka laakiin gadaal ayaa laga ogaaday in hubkii iyo saanadii ay ku wareejinayeen mucaaradkii Muqdisho ka waday kacdoonkii markaasi qaabka qabiilka u hadoodila. ciidamada dadka saddexaad ee arrintan sida weyn uga hadlay waxa weeye ciidamadii gaar ahaan saraakiisha hogaaminayay ilaalada oo aan la xiriirnay. barnaamijkan waran wareynaya la xiriiray qaarkood marka ay nala dareen hadleenna
waxay qaarkood u muuqday inuu ka sarreeyay ishaynta siyaasiyiinta markii aan si walba ula sheekaysanay waxay qabeen shucuur ka duwan tan baraha bulshada taalla waxayna isku arkayeen inay yihiin ciidamo Soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan maamulada ku jira dowladda dhexe una socday caasimadii dalka balse laga cishiimaystay marka laga yimaado khatarta ay dareemeen intii diyaaradooda dib loo celiyay waxay qabeen dood ah in loo diiday dalkoodii hooyo waxay kaloo isku difaaceen in ciidamadu dhaqan ahaan ay qaataan awaamiirta madaxda ka sarreysa sidaa daraaddeedna aysan ahayn in ayaga korkooda lagu diriro isla markaana badda dusheeda laga celiyo mid ka mid a waxa uu yidhi waxay ila ahayd in laygu yidhiyoo kale car cagaha ciidda soo geli isla markaana wuxuu sheegay in uu dareemay in magaalada muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya isaga laga sheeganayay waa dooda iyo dareenka uu isagu qabay markaad waa si wacan qiyaas ahaan loo eego hadaladoodii waxaa ka soo baxaysay inay dareemeen in caasimadii dalka laga sheeganayay ciidantii diyaaraduhuna aysan kaliya ahayn siyaasad balse caadifado kale iyo xaalad abuur ka weyni ay jiray isgaar ahaanna waxay ku eedeynayeen in fiila Soomaaliya iyo dareenka madaxweynaha oo mar walba ka hooseeya ay yiraahdeen mid qaran ay arrinta sababaysay qaarkoodna waxay qabeen inay markhaatimo doonto tahay inuu madaxweynuhu markastaba uusan jeclayn saaxiibna la ahayn ciidanka xoogga ama xamar ha joogeen ama kismaayo ha ka soo jeedeen dowladaha noocaas oo kale ana waxaa ku laran markaasi cadeymo waaweyn oo muujinaya in madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud marnaba asagu uusan jeclayn aadna uusan ugu dhaweyn sidii madaxdii isaga ka horreysay qaarkood ayaa la yidhi ciidanka gaar ahaan sheekh shariif iyo madaxweyne farmaajo oo labadaba la odhan jiray aad ayay saaxiib ula ahaayeen ciidan dadweynaha kale inkastoo dadka Soomaaliyeed ay fakarkooda xorta ay yar yihiin haddana si guud doodaha ugu waaweyn ayaa lagu kala darma doodaha ugu waaweyn waxay ahaayeen in ay aad looga naqaashay ilaa shalayna laga hadlayay wixii dhacay wayna yaraayeen dad si dhexdhexaada arrintan uga hadlay qaar ka mid ah aragtiyaha ayaa lagu soo hadal qaaday booqashadii madaxweynaha ee toddobaad ka hor laascaanood iyo ciidamadii gaadiid iyo diyaaradaba lagu daabulay balse ujeedada doodaasi qof walba itaalkiisa ayuu biciidsaday kuwa badan meel xun ayay la aadeen balse haddana gabi ahaanba si guud u hadallo dad badan ayaa waxay qabeen fahan ah in laga waday uun haddii madaxda maamulada iyo kuwa qarankuba ay iska caadi ahayd inay magaalo nabada ay la tagaan ilaaladooda ciidamada Soomaaliyeedna meeshii ugu dambeysay lagu soo dhaweeyo laguna maamuuso ay laascaanood ahayd maxaa ka duway oo kuwan diyaaradda loola gadi gaaray صراحة مدحوينها دولة فدرالك رئيس وزراء يقولها وزيرة تجي مقدشو يا مدحوينها مامل قبلات كجلمدو مستر قرقور انتو حيلتك عيدا كذا إلى لذة لاسعانو دوا مقالة آدو أمني بطن إسلام مركانا وحا أي كمتين مقالوين كأو أمني قواناكسان قودهان جمهورية فدرالك سومالي واردن بس واسك عادي أي كليه مادام ولي إسامنات دي سومالي دو أي si tartiib u soo noqonayso in qof walba uu ilaaladiisa uu ka haysto waxayna dhaqan u ahaydba Axmed Madoobe iyo Deni inay ciidamo iska horeysiyaan waa run oo sawir qurux badan iyo sawir maaha in ciidamo inta la daldalo la geeyo caasimada laakiinse sidoo kale haddana waa dhaqan iska caadi ah oo Soomaaliya barihi ugu dameeyay ka caadiyoobay kuwa badanna meel xun ayay la aadeen balse waxay u muuqdeen kuwa fahamkooda midba qof walba garaadkii hadlay haddii si caafimaad loo eegi lahaa waxaa soo bixi lahaa dad u qaadan lahaa arrintan gar oo oran lahaa askariga dhuusamareeb iyo warshiq ka tagay ee calanka cawaale garbaha ay ugu xardhan yihiin ee laascaanood ku sugayay amniga madaxda Soomaaliyeed iyo isla askariga baargal ama kudaaka yimid ee isla sidoo kale garbaha ku wata calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sugayana madaxda maamuladan ee dawladuba ay u yeedhay isla markaana ay marti qaaday inay si xog kala duwan jawaabta amniga caasimadahana muran badan kaba taagna in laascaanood iyo xamar ay laascaanood in badan ka amni badan tahay kana yar tahay Muqdisho oo ka kooban tahay balse si kastaba ha noqotee doodaasi waxay u egtahay mid gabi ahaanba dhinac kale loo rogay dadka qaarkoodna ay u muuqdeen inay meel kale ka istaageen waa run oo dadka qaarkood joojiba way iska danqadaan ayagoon hubsan dhul dhaca warka laakiinse waxyaalaha la yaab kale iyo hadarta taagan waxa weeye ummadii Soomaaliyeed miyay kala fogaatay si isku soo dhawaatay in qaar kamid ah xildhibaanadii lagu booqdo cusbitaalada iyagoo waran isla markaana nabarre soo gaareen xilli ay ka harsan tahay muddo 3 bilood iyo dhowr maalmood dawladnimadii oo dhan mandatekeedii waxay ku muujinaysaa sida hubanti la'aanta ay u tahay qarannimadii Soomaaliya oo mar kale ayadana sii darsanaysa isku soo wada duuduubo Soomaaliya taas ayaa ka taagan dhinaca kalena dalka Pakistan ayaa wuxuu u muuqdaa in uu galay dagaal aan la isku ogeyn
ciidanka awoodda badan ee dalka Pakistan ayaa qaaday weerar baaxad ballaaran kaasoo ay ku beegsadeen waxay ugu yeedheen goobo ay ku sugan yihiin kooxda go'doonka Pakistan. tan ayaa timid kadib markii uu weerar goortii horeysay uu dhacay. weerarka shalay dhacay ayaa markii hore wuxuu ku bilowday rasaas qaraxyo bambooyin ah oo ka dhacay gobolka Balochistan ee koonfurta galbeed ee dalka Pakistan, wuxuuna sababay dhimasho markii hore lagu tilmaamay dhowr iyo 30 ruux iyo waliba rayid u badan iyo 17 ka tirsan ciidanka ammaanka, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi oo leeyahay Safras Bugti ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dileen ugu yaraan 145 qof oo ka tirsanaa weeraryahanadii ka dambeeyay rabshadaha. kooxda falaagada Balochistan Liberation Army oo loo soo gaabiyo PLA ayaa markii ugu horeysay sheegatay mas'uuliyadda weerarada iyagoo ku andacooday in ay 10 askari dhigta dhiiga ay u dareen. ciidanka Pakistan ayaa kadibna bilaabay waxay ugu yeedheen bacsi iyo ugaarsi. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dad badan halkaas ay ku geeriyoodeen. wararka qaar ayaa xaqiijinaya in 50 qof ay markii hore ay dhinteen. isku dar ku dhawaad 250 ruux ayaa geeriyooday. ciidanka dowladda dalka Pakistan ayaa amar ku siiyay in ciidanka gurgura ay weerar qaadaan. wargeyska The Down loo yaqaano ee kasoo baxa dalka Pakistan ayaa ku tilmaamay in gudoomiyaha gobolka Safras Bugti uu ugu yeedhay in meesha lagu qaado weerar kama dameysa. wariyaasha qaarkood ayaa sheegaya in weerarku uu ku bilowday in ciidanka militarigu ay galeen xeryo ay kooxdu ku dhumaanaysanayeen. kooxda Balochistan ayaa doonaysa inay wadanka ka go'aan. qaarkood ayaa la sheegay inay yihiin dad ka soo jeeda dhinaca wadanka Afghanistan gaar ahaan kuwa ku dhintay. inkasta oo dowladda Pakistan bari ugu dambeeyay ay dareemisay cadaadis aad u xooggan, haddana waxay cambaareen dusha ka saartay dowladda ay sida weyn isku hayaan Hindiya ayaa ku eedeysay inay waayadii ugu dambeeyay oo dhan ay u soo tuunbaraacday maleeshiyaadyo argagixisa iyo sidoo kale dad dhibaateynaya gudaha wadanka Pakistan. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Pakistan ayaa ku eedeysay Hindida in ay go'aansadeen in ay isticmaalaan kooxo proxy ah oo si dadban ayaga ugu adeegaya oo ah ay yiraahdeen dad maskaxda ka jiran. laakiinse wasaaradda arrimaha dibadda dalka Pakistan ayaa ku tilmaantay eedeyntaasi mid xun. afayeen oo wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi India oo leedahay Randir Jaiswal ayaa sheegay in Islamabad ay tahay in ay miirsato isla markaana ay joojiso dhaqan xumada, wuxuuna sheegay inaysan weligood ilahoodba aysan taageerin weerar argagixisay cidda taageerta argagixisadana ay tahay Pakistan iyo Hindiya ayaa waayadii ugu dambeeyay midka kale uu ku eedeeyay inay ka dameeyaan dhibaatooyinka gudaha wadamadooda ka dhaca. weeraradan markaas soo noqonaya ee argagixiso ayaa u muuqda inuu midka kale uu ku eedeynayo dalalka isla markaana wuxuu keeni karaa iska horimaadkii bishii May ee dhacay oo kale sida dadka qaarkood ay qabaan ee sanadka 2025 waxaana loo arkaa in isxagxagashada dalalkan iyo isqabqabsigoodu uu noqon karo mid sii xumaada ama sii qaraaraada maalmaha soo socda. dhanka kalena dowladaha Kuba iyo Mareykanka ayaa la sheegay in ay qalalaase aad u xooggan dhinaca siyaasadda uu sii kordhayo. xilli madaxweynaha dalka Mareykanka la sheegay inuu isticmaalayo siyaasad lagu tilmaamay inay tahay dibindaabiye siyaasadeed. dalalka qaarkoodna uu doonayo inuu gacanta maroojiyo si ay u soo dhawaadaan mowqif ahaan. wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kuba ayaa ku eedeysay xukuumadda Washington si wadista siyaasadda daran. wasaaradda arrimaha dibadda war qoraal ay soo saartay ayaa sheegtay in ayadoo waayadii ugu dambeeyay ay soconayaan qalalaase aad u xooggan in dowladda madaxweyne Donald Trump ay go'aansatay inay argagax geliso qaar ka mid ah dalalka ku xeeran. Kuba iyo dadka Mareykanka gabi ahaanba waxa ay kaliya ku wada hadli karaan wada hadallo ee maaha gacan marooji, sidaa daraadeedna ma yeeli doono ayay yiraahdeen in gacantana la maroojiyo. Kuba ayaa ku nabad iyo caanamaashay inay taageero baaxad leh ay ka heli jirtay dalalkii Midowgii Sofiyeed, laakiinse tan iyo intii Midowgii Sofiyeed ay sii wadeen in ay hoos u dhacaan isla markaana Ruushka uu bedelay siyaasadiisii ayaa haddana wararka qaarkood waxay xaqiijinayaan in waayadii ugu dambeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka uu u qurinayo wadamada Caribbean oo dhan oo uu doonayo inuu cadaadiqeeyo. dadka qaarkood ayaase qaba in ay tani inta ka weyn tahay oo waxay leeyihiin malaha Putin iyo Trump waxay ku heshiiyeen adiguna calafso Caribbean-ka aniguna waxaan qaadan doonaa East Europe iyo bariga Europe, sidaa daraadeedna waa ilka cabayso hoosta ka xiriirsan. markii rafaxna ugu dambeyn baabuurta ayaa ka gudbaysa kadib markii gebi ahaanba qayb ka mid ah la furay xilli ay saraakiisha European Unionka ay goobjoog ka ahaayeen. ciidamada ammaanka ee Masar ayaa dib ugu soo dhawaaday aagga oo laga buriyay bishii May sanadkii 2024 kadib markii ciidanka Israa'iil ay halkaasi ka cayriyeen. markaas ilaaladii Masaarida ee aaggaasi ka dhaweyd sidoo kalena ay ku habsadeen. halka waxaa laga gudbiyay maanta dad markaas qaba dhaawacyo kala duwan oo xaaladoodu ay aad iyo aad u qalafsaneed. dadka qaarkood ayaa ku sheegay inay tahay yididilo, laakiin kuwa kale ayaa qaba in weli ay ka shakisan yihiin in Israa'iil hadhowto ay diido dadku inay dib ugu noqdaan deegaamadooda iyo dhulkooda hooyo.
nidaamka Israa'iil ayaa waayadii ugu dambeeyay wuxuu dalbanayay in aan dadka lagu soo celin haddii ay ka tagaan taasoo macnaheedu ay tahay qorshahooda isirsafaynta iyo deegaan balaarsiga oo ah mid ka mid ah siyaasadaha ugu qalafsan uguna xunxun Israa'iil ay doonayso inay ku dabaqado in dib loo furo marinka Rafah waa xuduudda u dhaxaysa Gaza iyo Masar isla markaana waa meesha kaliya ay wax ka soo galaan Israa'iil ayaa aaminsan in ay jiraan hanaano tirabeela iyo shabakado hub ka soo gudbiya aagaasi oo ku sii talaalan ciidanka dalka Masar ciidamada ilaalada ee dalka Masar ayaa dhow jeer diiday in baaritaano lagu sameeyo baabuurta xasaanada leh laakiinse Israa'iil ayaa waayadii ugu dambeysay loo ogolaaday ayaa la yiri in la fatasho shay kasta oo halkaas ka soo gudbaya si loo xaqiijiyo badqabka iyo qulqulka arrimaha noocaas oo kale la xiriir isku soo wada duuduub sida muuqata waayadii ugu dambeeyay oo dhan Israa'iil waxay doonaysaa inay hal mid oo fariina ay dirto taasoo ah in aysan aagaasi ka soo gudbi doonin wax aysan iyadu la socon ogeyn isla markaana aysan dhowrin oo aysan gabi ahaanba qalbaagadiin